cabdiraxmaan cabshakuur waxa uu ka mid yahay xubnaha sarsare ee wasiirada la socday ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke isla markaana wuxuu ahaa wasiirkii qorsheynta iyo qaranka taasoo dad aad u fara badan oo Soomaaliya ay ku tuhmayeen inuu ahaa ninkii saxiixay in badda Soomaaliya laga iibiyo dal shisheeye soo wasiirka sheegay xaq u leeyihiin dadka Soomaaliyeed inay ka daqaan wax allaale iyo wixii dhibaato ku ah qarannimadooda hantidooda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii sida rad ficliga ama reaction-ka laga bixiyay inay dadku warshadaha dhulkooda ma ku dheeraan doono aniga wasiir baan ahay golo wasiiraan ka tirsanahay prime minister-ka in hor fadhiyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke amarkiisa aan ku saxiixay aniga heshiiska marka cawada asaga inuu hortaagan heshiiskaas wixii ku saabsan iyo waxa ka qabtiin waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha asaga ka jawaabi doona cabdiraxmaan cabshakuur ayaa ku tilmaamay arinta uu saxiixay oo ku aadaneed badda Soomaaliya in uu ka helay amar buuxa uu ku saxiixay ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke